السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامجكينا wargeysada oo si toos ah kaga imaanaya stuudiyahan ku leenahay magaalada London barnaamijkan waxa si wada jir u soo diyaariya anigu waa Maxamed Saciid Saxaaf iyo stuudiyaha kale oo fadhiyo wariye Cabdixaafid Maxamuud Jaamac waxaanu badanaa ku soo qaadanaa wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinadii ay warbaahinta qaasatan wargeysadu ay ka qoreen dunida amaanta ku noolnahay waxa stuudiyaha kale fadhiya wariye Cabdixaafid oo isna toddobaadkan wargeysyada iyo warbixinada gaara isha ku hayay soo dhaw Cabdixaafid وريم محمد سعيد أصحاب هذه يلا مان برشلونة الصومالية وحنا رمضان كريم مالك الصور جوني كجوكتان سنة كيسة كليلين وقارتي بش برواقية دت كان يدل كانوا النظر آمين aad baad u mahadsan tahay wargeysada waxaanu kuga haynaa warbixino qaas ah oo toddobaadkan warbixino kala gedisan oo caalamka laga qoray aanse ku bilaabay warbixinada la qoray oo caalamka meelo kala gedisan waxa uu Cabdixaafid oo wararka Ukraine in ay run ahaantii warbaahinta caalamka qabsadeen taas oo meesha ka saaraysa in warbixino kala gedisan oo laga qori lahaa ama warbaahintu ay ka qori lahayd ama wargeysaduba ay ka qori lahaayeen wararka caalamka inay meesha ka baxaan marka waxaan fiirinayaa wargeyska The Washington Post ee ka soo baxa wadanka Mareykanka waxa wargeyskaas toddobaadkan uu qoray warbixin gaar ah Cabdixaafidow oo kamid ah warbixinadan kugu hayo barnaamijka qaas ahaan warbixin uu ka qoray dagaalka ka soconaya wadanka Mali maxaad ugu noo haysaa maxamed waxaan ku hayaa arintaas war dagaalka la xiriira laftigiisa arrimihii u dambeeyay ee dalka Ukraine iyo dagaalku meeshuu marayo 300 oo qof oo bulshada rayidka oo meeyda ayaa la helay taas ayaana caalamka oo dhan ay haatan hadal hayaan haddii noqon lahayd Mareykanka Ingiriiska iyo Yurub inteeda kaleba kulli waxa laga cabanayaa dadka inta la eeg ee dhibaatada ay soo gaadhay ee dalka Ruushka uu gaarsiiyay Ruushka ayaan wali arrintan ka hadlanin arrimahaas iyo arrimo kale oo muhiim ah ku haya ku soo Maxamed way mahadsanid warbixinada kale ee barnaamijkeen wargeysada aan ku hayno daawadaasha ugu talagalna Cabdixaafid oo dhankayga soo qabto waxa kamid ah wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalkan oo isaguna warbixin gaar ah ka qoray toddobaadkan waxa la soo bandhigay isku aadkii kooxaha kubadda cagta ama wadamada kubadda cagta dunida ee u tartamaya koobka kubadda cagta sanadkan lagu qabanayo wadanka Qatar oo run ahaantii dhinacyo badan aanu ka eegi doono warbixin gaar ah oo wargeyskaas ka qorana aan idinku hayno وحاجات محمد وربحتها سكوابسن يوكرين طبعا جورنال كوينة كسو بحا إنجليز ذا جارديان أيا قري رويترز أيا سيدو كلا قريسة وانا أرمى مهمة وحنا كلا كوهينا قضب كأودن بيانا وحنا كوهينا أنا واندين هي مهمة دقار كالا جعلنا يردوا الاستاغنون أدون كودن كدد كيسو أي وفر حد بدن يهين طلو ياد ومرين سحن ودن كاسينو يهي أيام برشادة صهمالي سيوي دين دونا وحنا يدين سوحنا مرنيا مريكن كيني سنحين بلسي وكالمها أولي تفجرو qaybta dambe barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan haddii ilaa yiraahdo maxamed soo dhow maadsanid anigu haddaan ku hormaro Cabdixaafid oo afartaa qodob iyo qodobo kaleba wargeysada caalamka ee qoreen halkan lagu soo koobi karin aan ku hormaro warbixin gaar ah oo laga qoray wadanka Mali oo kamid ah wadamada ku yaala qaaradda Afrika run ahaantii cabdi oo isbedel siyaasadeed ayaa dunida ka dhacay kadib markii Ruushku uu weeraray wadanka Ukraine Ruushku wuxuu fursado ka raadiyay wadamo badan oo caalamka oo ay kamid yihiin wadamada ku yaala qaaradda Afrika wadanka Mali wuxuu kamid noqday wadamada markaa xiriirka hor leh uu la yeeshay ama uu sii adkeynay xiriirka hor ula lahaa madaxweyne Putin inkastoo reer galbeedku aad uga caroodeen sidaan ognahay wadanka Mali wuxuu xiriir soo jireen oo la lahaa wadanka Faransiiska wuxuu dagaal kula jiray kooxaha argagixisada ee wali ka dagaalamaya gobollo ku yaala gudaha wadanka Mali dhawaanaha waxa ka dhacay afgambi siyaasadeed oo ciidamada militarigu ay xoog ula wareegeen wargeysku dhinacyo badan buu ka fiirinayaa qaasatan wargeyskan Washington Post aad ogtahay in laga leeyahay wadanka Mareykanka wargeyso kale oo caalamkan aan fiirina laakiin warbixinta iyagu markay qorayaan waxay farta ku fiiqayaan in wadankaas oo dimuqraadi hore u ahaa wadanka Mali oo imika noqonayo wadan ay ka talinayaan kooxo ay ku tilmaameen kooxa mayal adag ama kooxa militariya oo xoog xukunka ku yimid isla markaana xiriir siyaasadeed iyo mid amni iyo mid dhaqaale la yeelanaya qolooyinka ay wargeysada reer galbeedka qaasatan wargeyska Washington Post uu ku tilmaamay madaxtooyada Kremlin oo iyaga laftirkooda u arkaan inuu yahay xiriir dhex maraya laba dhinac oo labaduba laba aan dimuqraadi ahayn waa xiriirka ciidamada imika qabsada wadanka Mali iyo waliba qolada Kremlin ee joogta wadanka Ruushka ciidamada marka waxay sheegteen Mali maapkana haddaan tusno wadamo dhowr ah wadanka Mali uu xuduud la leeyahay wadanka Algeria wadanka Niger Burkina Faso Ivory Coast Guinea Senegal iyo Mauritania waa dareemi kartaa marka waa wadan dhex bartamaha ugu jira wadamo badan haddana wadan aan lahayn bad wadamada Afrika marka loo fiiriyo waa landlocked sida imika qariidada ay ka arki karaan daawadayaashu marka dadkii dowladda waxa ku adkaatay ama ciidamada imika cabdiyo xooga ku qabsada waxa ku adkaatay in dagaalkay kula jiraan waxay ku tilmaameen kooxaha argagixisadu ay wadamadaas sida maabka arkaysay u kala cararaan haddana ay gudihii ku soo laabtaan
network aad u fara badan ama shabakad aad u xoogganna ay yihiin toddobaadkan marka waxay sheegteen ciidamada militariga ee waddanka Mali inay dileen tiro dad gaaraysa ilaa 200 oo ay ku tilmaameen inay ahaayeen kooxahaas argagixisada balse UN-ku qaramada midooba taas wuxuu arkay mid ka duwan oo waxay walaac ka muujinayaan in ciidamada xoogga isticmaalayaan ama goobaha ay weerar ku qaadeen lagu laayo dad fara badan oo shacab ah oo shacabkaasna ahaayeen dad iyagu ku noolaa goobaha dagaaladu ay ka socdaan ciidamaduna aysan u naxariisan taa lafirkeeda dhinaca UN-ku waxay u arkaan ama qaramada midoobay in dowladda waddanka Mali raggan hadda imika xoogga ku qabsada waddanka militariga aysan u naxariisanin shacabka dhanka kale waxa u muuqda xiriirkii kala dhexeeya Faransiiska haddaan dhankan reer galbeedka fiirinana ciidamadii Faransiiska in muddo joogay gudaha waddanka Mali ee caawinayay taageeraya dowladda waddanka Mali iyaguna ciidanku waa la baxeen oo waxay bishii tagtay February dabayaaqadeedii bishii hore March bishii ka horreysay February dabayaaqadeedii ayay go'aan ku gaareen Faransiisku in iyaguna la baxaan ciidankooda marka ruushkii marka wuxuu soo diray qalab iyo ciidan tababara ciidankii Mali wuxuu u soo diray helikobtaro wuxuu yiri ragga iska celiya sii socda dadkii marka waa kala qaybsan yihiin gudihii waddanka Mali cabdiyow dad waxay taageersan yihiin ruushkii oo waxay rabaan waxay leeyihiin argagixisadan iyo projectigan ay soo gabagabeynayaan qaarkood waxay leeyihiin waddanka Mali wuxuu u socdaa meel mugdiya oo xiriirkii wadamada kale reer galbeedka ayaa meesha ka sii ba'aya marka waxa wadda dhinac kasta wargeysku markuu ka fiiriyay in kastoo wargeys reer galbeed yahay haddana wuxuu farta ku fiiqayaa in mustaqbalka waddanka Mali uu yahay mid aad iyo aad u liita aad iyo aad maxamed aad baan kaaga mahad celinayaa waa xaqiiqo jirta wey daawadayaal waxaad daawanaysaan barnaamijka wargeysyada oo toddobaadlaha wariye maxamed siciid saxaaf iyo anigoo cabdixafiid ayaa isla daadiinayna idinka ayaa daawanaya dunida meel kastoo aad ka joogtaan maalmaha dunida ayaad ka daawanaysaan iyo weliba Brit Somali TV maalmaha dunida waxaan jecelnahay daawadayaal inaad noqotaan dad rukunto oo markaasi toos ugu taxan si aad la socotaan barnaamijyada aan soo gelin hadday ahayd qaybta Facebooka iminka naga daawanaysaan iyo weliba qaybta YouTube-ka haddaba aan u gudbo qodobkaan waan idiin hayo oo muhiimad gaar ah leh dagaalka dalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya ayaa xaaladiisu meel halis ay maraysaa waxaana wiigii hore aad aragteen maalmihii lasoo dhaafayba in Ruushku uu markaas dagaalka meelo kala duwan oo ka wada maalintii 39 ayaa la maraya waad arkaysaan haddana waxaa muuqata inuusan dagaalku weli dhammaanin si kastoo isugu dayay wada hadallo waan in laga galo haddana weli dagaalkii wuu socdaa waxaana maanta ay ka baxeen ciidamada Ruushku magaalo u dhow Kiev oo ah magaalo madaxda halkaas oo la helay mayd markay ka baxeen ciidamada Ruushku ilaa 300 oo qof oo bulshada rayidka ah lagu qiyaasay arrintaas Ukraine ayaa sheegtay dabcan anagu ma xaqiijin karno hase yeeshee xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa ku tilmaamay arrintaas cambaareeyay generalka ayaa sidoo kale ku tilmaamay arrin ah war crime ama dambi oogay inuu yahay Ruushka loo baahan yahay inuu arrintaas ka garnoqo dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Greega ayaa waxa uu maanta tegay magaalada xeebeedka Odessa halkaas oo xaalad bilaadan ay ka jirto laga geeyay markaa macaawino dadka ay u baahnaayeen waxaana muuqata dagaalkan inuusan sii joogsanaynin wada hadalladuna aysan weli miro dhalinin inkastoo rajo weyn laga qabo dabka gadaasheeda ka baxaya ciidamada Ukraine ayaa geystay waxay ahayd ceelalka shidaalka ee markaas dalka Ruushka u lahaa halkaas oo ciidamadooda saadka ay ka qaadanayeen haddana isla mar ahaantaas ay diyaarada ku gubeen taas ayaa la sheegay Ruushka inay ka sii caraysisay dabkiina ay maaragtay badrool ku sii shubtay waxaana arkaysaan dhibaatada ka taagan dalka Ukraine 10 milyan dad ku dhow ayaa qaxaya oo ka qaxaya guryahoodii oo intoodu badan ay yihiin maato iyo carruur aan waxba galabsanin waxaana maalin walba sii kordhaya dhimashada iyo dhaawaca bulshada rayidka ee markaa ayagoo aan waxba geysanin guryahoodii ka qaxaya ee markaa Ruushka uu qaxinayo dagaalkan ayaan la saadaalin karin meeshuu kusoo dhammaanayo wejiyo fara badan ayuu leeyahay oo ay ka mid tahay dagaal dhaqaale inuu yahay marka qaacidada military ee iska soo horjeeda laga soo tago iyo NATO ayada laftigeedu mar walba kusoo daabuleynaysa hub iyo ciidamo xuduudaha wadamada xuduudka leh dalka Ruushka oo markaas Ukraine ay ka mid tahay iyo wadamada kale ee markaas ay saaxiibka leeyihiin markaas Baltic state ka isku yiraahdo soo maxamed run ahaantiina u mooday waddanka Ukraine xaaladiisa maalintii 39 ha gashay maba xumay laakiin waxa run ahaantii u moodaa in qaxootiga si gaar ah loola dhaqmayo Cabdi Xaafid Soomaha ka imaanaya Ukraine marka loo fiiriyo qaxootiga ka imaanaya wadamada kale dagaaladu ay ka soconayeen sida Iraq iyo Syria iyo Afghanistan oo u mooday in hay'adaha xuquuqda aadanaha qaarkood iyo waliba qaramada midoobay ay sheegeen in wadamada qaarkood markay timaado inay soo dhaweeyaan qaxootiga ka imaanaya wadamadaas iyo waddanka Ukraine farq weyn u dhaxeeyo maxamed arrin xaqiiqa ah weeye oo la dukument gareeyay oo si fiican loo ogyahay
iska daa qaxootiga ka imaanaya waddanka Ukraine dadkii ardayda ahaa ajnabiga ahaa ee ku noolaabay u diidan inay xuduudka tilaabaan waxay leeyahay dadka cad ee waddanka u dhashay waa la horumarinayaa waxaana halkaa ka muuqatay cunsurinimo waxaa kaloo cunsurinimadaas qayb weyn iyo gundi ka ahaa saxaafadda reer galbeedka oo si cad u sheegtay inaysan dadkaanu aysan ahayn sida dadka ciraaqiyiinta siriyiinta iyo dadka qaxayo kale ay yihiin dad cad diinta masiixiga haysta waa si hadalka u dhigeen isla mar ahaantaana indhahoodu buluug yahay timahooduna ay cad yihiin kana wanaagsan kuwa kale ee aan ahayn dadka dib u dhaca iyo dagaaladu ay ragaadiyeen hase yeeshee waxaa muuqata inaysan waddamadu sidaas oola dhaqmanin dadka soo qaxay ee si ka duwan loola dhaqmay waxaad eegtaa jarmalka eeg faransiiska eeg poland waxay diiday hal qof oo qaxooti ah oo muslim inuu dalkooda soo galo ma doonayna ayay yidhaahdeen meesha ay Ukraine albaabada ay u fureen dhowr milyan oo reer Ukraine ay kusoo qaxeen marka cunsuriyadana waa jirtaa ka dhan dadka muslimiinta ee soo qaxaya mararka qaarkood dadka muslimiinta waddamadooda waxaa moodaa markii dagaal iyo colaad laga oogo mid ay muslimiintu qayb ka yihiin iyo mid dibadda looga keenayo markaad eegtid waxaad arkaysaa dadkii dhibaatada ayagu geystay oo dalalkaa burburiyey inay leeyihiin nabad baanu dunida u raadinaynaa marka isma qabataanu leenahay maxamed waayo harun ahaantii dhinacyo badan aynu ka eegi doonno inta barnaamijka lagu guda jiro aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdixaafid oo inoo soo koobiyey cabdiow warbixinta annaan idinku hayo oo ka mida warbixinada toddobaadkan warbixinta qabsada waxaa ka mida weliba wargeyse kala gedisan oo caalamka maqal iyo muuqaal intaba iyo qoraalkaba lagu soo bandhigay waxaa aad loo sugaa kubadda cagta markay timaado koobka dunida oo 4 sanaba hal mar la qabto sanadkan dhinacyo badan buu kaga duwan yahay sanadihii hore kow waa markii ugu horreysay waddan muslimna lagu qabanayo labo waa markii ugu horreysay waddamada bariga dhexe ku yaalla waddan ka mida lagu qabanayo koobka kubadda cagta dunida saddex waa markii ugu horreysay ee xilli samara ama kuleel aan la qabanayn koobka kubadda cagta dunida waxaa loo raray xilligii bishii November oo ah bisha 11aad ee sanadka wadamada qaaradda tan Yurub xilligaas waa xilligii qaboobaha waxaa sidoo kale socda oo jira oo ciyaarihii kubadda cagta ee horyaalada Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Talyaaniga iyo Jarmalka oo iyaguna socda oo waxay qasab ku noqonaysaa in jadwalkii isbedel lagu sameeyo taa waxaa sii dheer in waddanka Qatar weli ay dul taagan tahay eedamihii la xiriira xuquuqda dadka ka shaqeynaya garoomada ee dhisay oo wadamada reer galbeedku ama warbaahinta reer galbeedku ay farta ku fiiqayso inkastoo si kale haddaa u fiirisidna ay dowladda Qatar ay isdifaacday oo ay leedahay meelihii ay seexanayeen ama xaaladii ay dadka ku sugnaayeen waxbay ka bedeleen mushaarkii qaadanayeen waxbay ka bedeleen cuntadii la siinayay iyo weliba meesha ay seexanayeen oo warbaahinta reer galbeedku ay si qarsoodiya ay uga soo goor aduu wadda dheer kadib Qatar waa waddan qani ah oo og tahay waddan facilitieska markay timaado iyo garoomada la dhisay aad casri u ah dhaqaale fara badan geliyay isu soo dhisay in muddo laakiin jimcihii waxaa la iskugu yimid magaaladii Doha ee xarunta waddanka Qatar waxaa lagu soo bandhigay isku aadkii sidii la iskugu aadi lahaa isku aadka marka waxa u fiiriyay dhinacyo kala gedisan wadamada caalamka kubadda cagta ugu horeeyay sida Brazil iyo muxuu ahaa Belgium iyo kaalimaha kood kaga xigo dhinaca iyo wadamada isku qaaradaha oo la kala wareejinayay tusaale ahaan waddanka hadduu yahay Senegal waddanna uu yahay Morocco labadiiba waxay ka yimaadeen qaaradda Afrika marka in la kala wareejiyo nidaam marka waxay sameeyeen qaababkii qaaradaha in loo kala fiiriyo sidoo kalena tiimamkii kaalimaha koowaad iyo dhexe iyo kaalimaha ugu hooseeya kaga jira markay timaado inkastoo 32 koox ay soo baxday waxaa kaloo xusid mudan cabdiyow sanadkan waa sanadkii ugu dambeeyey ee koobka kubadda cagta dunida la qabanayo oo ay ka qayb galaan 32 koox sanadaha soo socda waxaa lagu qaban doonaa qaaradda North America waxaa ka qayb gali doona 48 waddan marka qaaradda Afrika iminka waxay haysataa 5 waxay heli doontaa mustaqbalka 5 ka badan sida la rajaynayo isku aadkaas 5 kaliya hadda nooga soo aaday marka sanadkan wuxuu ahaanayaa sanadkii ugu dambeeyey oo 32 waddan ay ka qayb galaan oo ay ku jirto waddanka martigelinaya Qatar 4 sano kadib waxaa lagu qaban doonaa qaaradda North America waxayna noqon doonaan 48 waddan isku aadkii sida uu dhacay anagu Ingiriiskan ku noolnahay waad ogtahay Ingiriiska kubadda cagta sida lagaga xiiseeyo iyo sida loo jecel yahay Ingiriisku waxa weeyaan waxaan ku tilmaamnaa xawaajiga cusbada haddii Ingiriiska ma ahan inaan degannahay keliya laakiin Ingiriisku markuu ka haro koobka kubadda cagta dunida sida ogtahay cabdixaafid dhadhankii baa ka hara weliba cusbadiiba aduu bariis cusba leh aan cusba lahayn ama se dhadhan lahayn ayuu noqonayaa koobkii kubadda cagta inkastoo horyaalka Ingiriisku ee horyaalka kubadda cagta adduunka ugu qaalisan uguna wanaagsan maanta haddana Ingiriisku markay timaado kubadda cagta xagga qaramada iyo waddan ahaan sidaa kuma ahanoo meelo fog ma gaarno sanadkan waxaan rajaynaynaa dhalinyarada soo baxday inay meel gaaraan aan daawadayaasha la wadaaga marka sida la iskugu aaday group A oo ah groupka koowaad
waxaa ku soo waddanka martigelinaya waxaa isku soo aaday waddanka martigelinaya oo qatar ah oo aad iminka aashashada ka arki kartid waxaa gruubkaas kula biiray qatar wadamada ecuador fiiri ecuador waa qaarad kale tusaale ahaan latin america senegal waa africa netherland waa yurub marka afar qaaradoodba meeshaas ku kulmaya inkastoo ay group a wada yihiin sida ay u fiiriyeen marka qatar iyo ecuador iyo senegal iyo netherlands waxay ka mid yihiin afarta wadan ee group a group d sida daawadayaashu ay arki karaan groupka ba ama b waxaa iskugu soo baxay wadankan degannahay england ciyaar xiisale ayaa dhici doonta cabdi xaafid iiraan iyo maraykanka markay ciyaarayaan waxay noqon doontaa kulan aad iyo aad ay warbaahintu ishu ugu hayso kan afraad wadanka afraad group b wuxuu noqon doonaa kii soo baxa waxaa ciyaari doona scotland iyo ukraine kadibna waxay la ciyaari doonaan wales iyo scotland iyo ukraine kii soo baxa ayaa buuxin doona group b group c sida daawadayaasha arki karaan waa argentina ninkii lionel messi ahaa sanadkana ugu dambeysa isagii cristiano ronaldo xagga da'dii baa ka daba socota waxaa laga yaabaa in marka ay run ahaantii dadaalaan waxay isku group yihiin wadanka sacuudi arabia wadanka mexico iyo wadanka poland haddana haddaa fiiriso waa afar qaaladood oo kala gedisan argentina oo latin america south america sacuudiga oo xagga iyo asia ah mexico oo north america iyo poland oo qaaradda tan yuruba group c halka group d ay iskugu tagaan cabdixaafid oo haddaad aragtid oo ah faransiiska kaalinta labaad waxaa la sugayaa midkii soo baxa waa wax loo yaqaano qaaradaha kala gedisan oo ay fifa samaysay midkii ku soo baxa united arab emirates oo ah wadanka ka imaanaya xagga iyo asia amase australia ama peru oo latin america mid ka mida saddexdaa ayaa group b wadanka labaad u noqon doona waxaana kusii xiga wadamada denmark iyo tunisia oo ay daawadaashu arki karaan adigunaad arki kartid group e haddaan u gudbo sida cabdi xaafid shaashada ay daawadaashu ka arki karaan waxaa iskugu soo baxay xoogaa timam adag ba halkan iskugu soo aaday oo laba wadan oo qaaradda tan yurub qaaradda yurub soddon labada inta ugu badan maadaama ay ka imaanayaan wadamadaasi qaaradda yurub mararka qaarkood meelaha isku soo aadayaan marka Spain iyo Jarmalka iyo Japan ayaa group E ku wada jira waxayna sugayaan kii soo baxa wadamada Costa Rica oo Latin America iyo wadanka New Zealand group F cabdi xaafid hadaa fiirisid waa wadanka Belgium wadanka Canada wadanka Morocco iyo wadanka Croatia afartaa wadana waxay iskugu tageen group F group G waxaa iskugu tagay waa xulka kubadda cagta Brazil oo iyagu ah xulka ugu guusha badan ee koobka kubadda cagta dunida 5 jeer ku guuleystay wadanka Serbia iyo wadanka Switzerland iyo wadanka Cameroon ee qaaradda Afrika oo nasiib darro iyagu martigeliyay koobkii qaaradda Afrika balse aan ku guuleysan oo iyagu martigelinaya la reebay group H waxaa iskugu imaanaya ninkii Cristiano Ronaldo hogaaminaya xulka kubadda cagta Portugiiska oo isagana sida Lionel Messi sanadkan ay tahay sanadkiisii ugu dambeysay cabdiyow waxaana soo raaci doona wadanka Ghana ee qaaradda Afrika wadanka Uruguay oo Latin America ka socda iyo wadanka South America ayraada wadanka South Korea oo ka socda dhanka Asia waxa markaa u muuqda dhinacyo badan in dagaalku ka socdo Lionel Messi iyo Ronaldo waxay leeyihiin gabagabadii waa sanadkii taariikhda kulli mid inuu qaaday rabaan laakiin kastoo wadamo badan ay meesha joogaan oo Brazil iyo Jarmalka iyo Spain ay joogaan laakiin qaaradda Afrika sanadkan waana laga reebay masaarido ninkii Sadio Mane oo ay Mo Salah isla yihiin naadiga kubadda cagta Liverpool ayaa soo baxo Senegal ayaa ku matalaysa marka aan kula kaftame adiga taagay anigu Ingiriiska 100% ingiriiska inkastoo lagu xanta cabdiyo ingiriisku inay yihiin qolada waa qaylisaa baa la leeyahay waxna ma keenaan ingiriisku waa soo sheego ingiriiska laakiin sanadkan waxay keeneen ilmo yar yar waxaas waxba kama jiraan haddii ay ciyaaraha adduunka ay noqoto world cup ay noqoto number 1 waa ingiriiska number 2 waxaan taageeraa Brazil laakiin ciyaaraha kale marka la ciyaarayo waa ka dhacsanahay ingiriisku waa saa sheegtay ingiriisku waa basbaaskii iyo xawaajigii iyo milixii ciyaaraha weey haddii ingiriisku ciyaaraynin xamahan buuqa iyo qaylada iyo xoogaa yaroo huligana aan leenahay waxay ka mid tahay waa ciyaaraha qayb ka mid ah weey marka haddii aan la helaynin waxaan garan kartaa kooxaha ka dhisan muqdisho markay ciyaarayaan kale haddii degmada waa beri laga reebo ciyaaraha milix ma sidaas oo kale weey maadaama aad deganaa jirtay laakiin waa beri waa laga dambeeyaa dad sahlan ma ahan waxay keenayaan gabdhahoodii waxay keenayaan ciyaartooydoodii dadkii waaweynaa imaanaya waa dad qiiro badan marka ingiriisku waa saas weeye xoogaa yar oo buuq badan baan leenahay laakiin ingiriiska oo ka haray world cup ciyaar meesha inta lagu kala tegay
sanadka waxaa xusid mudan soomaali badanna ay ogaan karaan waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ahaa oo koobkan lagu tabi doono waddanka talyaaniga oo kubadda aad lagaga jecel yahay way ka hareen oo 32 waddan kumaysa soo bixin dad fara badan baa jeclaan lahaa inay soo baxaan laakiin waa laga badiyey oo iyagu israreebkii bay ku hareen oo umaysa soo gudbin marka talyaaniga marka loo fiiriyo wadamada hadday maqan yihiin tusaale ahaan ahna wadamada in badan ku guuleysta waa 4 jeer bay ku guuleysteen iyaga jarmalku tira ahaan intaan xasuusto Brazil baa shana marka waxyaabaha kale oo xusida badan koobkan kubadda cagta aan ogahay qodobkiina inuu noo dhiman yahay farxadda dunida waddanka laakiin kubadda cagta waxyaabaha la yaab kale cabdixaafid oo sanadkan aadka loo fiirinay waxaa ka mid ah qatar waa waddan muslim ah tusaale ahaan waxyaabaha marka warbaahintu isha ay ku hayso reer galbeedka khaasatan waxaa ka mid ah wadamada hore loogu qaban jiray waxaa ka mid ah in baabab waafi weyn oo meelaha qabriyada lagu cabo ha noqoto hoteeladii ha noqoto dadkan maaragtay dhaqamada kala gedisan iyo diimaha kala duwan qaarkood jinsigooda uu kala duwan yahay tegaya meeshii marka su'aalo fara badan bay reer galbeedku ishu ka hayaan waxay leeyihiin war qatar sidee bay ahaan doontaa iyo mana soo dhaweyn doontaa iyaga laftirkooda cabsi baa ku jirta ingiriiskuse si kale haddaa u fiirisid waxay iyagu already qiyaaseen inayba soo baxayaan iyagoon kubaddi weli laadin maadaamay wadamadan ay qadka kula jiraan ay fududahay waxaa asna isha lagu hayaa ciyaarta u dhexaysa maraykanka iyo iiraan oo aad u moodid dagaalkii siyaasadda in taageerayaashu dhagaxs la dhici doonaan aad iyo aad maxaa yeelay iiraan iyo maraykanka lasma tusi karaa arrinta ku saabsan nuclearka awgeed maraykanku gaar ahaan donald trump oo uga baxay ballankii iyo saxiixii caalamiga ahaa ee madaxweyne isaga ka horreeyey xuseen barack obama uu markaas barack obama uu saxiixay uga baxeen marka iiraan waa la bushgareeyey aad baa loola dagaalamay cunaqabatayn baa muddo dheer lagu hayay waxaana muuqata ayaga iyo dowladda maraykanku inaysan isku fiicnayn laakiin waxaa laga yaabaa ciyaaruhu dadka isdhexgal bulsho ayay keenaan siday noqon doonto oo la arki doonaa laakiin iiraaniyiinta maraykanku marnaba iskuma wanaagsan maxamed haddii aan eegno arrinta ku saabsan cabitaanka maandooriyaha khamriga loo yaqaano iyo world cupka waa waxyaala aan kala harinin weeye oo dadka kubaddan daawanaya hadday ahaan lahayn kuwa guryaha jooga iyo hadday ahaan lahayn kuwa garoomada laftigooda lagu ciyaaraya imaanayaba khamriga aad bay u cabbaan bulshadan aan ku dhex nool lahay mana ii muuqato xaqiiqatan sidee khadar arrintaas ay u manage garayn karto maxamed laakiin war jiraaba cakaaru imaan waayahay qodobka intaan u gudbin waxyaabaha kale ee xusida mudan oo daadaasha qaarkoodna iminka ay xasuusiyeen waxaa ka mid ah qaaradda afrika sanadkan waxaa ka socda wadamada sida senegal iyo cameroon oo daadaasha qaarkood ay arkayeen yaad is leedahay sanadkan qaaradda afrika haddaa mar kale aan daawadayaasha tuso tusaale ahaan dhanka a waxaa noogu jira waddanka senegal group b waxba kuma lihin group c qaaradda afrika waxba ugama jiraan group d tunisia noogu jirta halka dhinacan iyo belgiumna morocco noogu jirto dhinacan waxaa noogu jira ghana oo ah group h halka cameroon marka ghana iyo tunisia laba wadan oo morocco iyo tunisia oo iyagu carab ah iyo saddexda kale ghana iyo cameroon iyo senegal keebaa isleedahay shanta wadan ee qaaradda afrika meelaha xoogaa 16 ilaa meelaha waxay gaari karaan aan isleenahay ama tiim ahaanba way awoodaan inay gaaraan aad iyo aad aan waxaan jeclaan lahaa booska hadda ay Ghana ku jirto inay Nigeria ku jirto xaqiiqatan hase yeeshee marka Senegal iyo Morocco iyo la isku fiirsho Cameroon anigu boqolkiiba Cameroon baa ka ciyaar wanaagsan kana khibrad badan waan arki doonaa wax ka soo baxa laakiin waa kubado mararka qaarkood waxaa arkaysaa koox dhaqaalo badan ciyaartooyda ugu fiican haysa ayaa waxaa darsi u dhigaya kooxa islahayd 5-0 baa looga badanaya waa sida talyaaniga lagu reebo kale waa kaas marka qaarkood waa kubad weeye waa la saadaalin karaa waa isleedahay laakiin saadaashaas marna way dhabowdaa marna ma dhabowdo oo koox aad u liidato oo la yesayey baa wacdara garoonka ka dhigta oo guul kala tagta marka waa arki doonaa waxa ka soo baxa haddii ilaah yidhaahdo bal waaya qodobka ugu dambeeya waxaan qodobka ugu dambeeya waa qodob xiiso badan una baahan xaqiiqatan xoogaa yar aanu dul istaagno saa daawadayaal ogtihiinba waxaa lasoo saaraa report sanadla ah oo markaa lagu eego waddanka adduunka ugu farxadda badan dadkiisa ugu farxadda badan yihiin waddamo badan ayaa marka tartankaas la eegaa eegitaankaas ayaa waxaa laga soo saaraa markaa daraasad rasmi ah daraasadaas ayaa waxaa laga eegaa dhinacyo fara badan nuxurka hadday aanan siino haddaba jariirada daily mail ayaa daabacday bbc daa daabacday iyo warbaahin kale oo aad u kala duwan ayaa daabacday
dalka la yiraahdo Finland ayaa waxa uu noqday baa la yiri wadanka oo dadkiisu ay ugu farxadda badan yihiin caalamka oo dhan marka la eego gaar ahaan wadamada caalamka oo dhan gaar ahaan wadamo 156 wadan ah oo daraasadaha laga sameeyay ayay Finland waxay noqotay number 1 ayay gashay dhinaca farxadda bulshada reer Finland ayaa waxa la yiri Yurubta kale iyo caalamka intiisa kale gaar ahaan wadamada 156 kaaba way ka wanaagsan tahay waxyaalo fara badan ayayna uga wanaagsan tahay baa la yiri xagga nolosha xagga deegaanka xagga bay'adda pollutionka waxaan dadka naqaska ku dhajiyay ee markaa warshadaha ka soo baxa waxay kaga fiican tahay xagga waxbarashada waxay kaga fiican tahay xagga korinta ubadka iyo waxbarashada ayay kaga fiican tahay baa la yiri wadamo kale ayaa waxa jira ayaga laftigooda markaa kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad soo gala waxaa ka mid ah Denmark oo kale ayaa ka mid ah Sweden Iceland Norway wadamadaas oo badankoodu isku dhow ayaa waxay yihiin wadamada markaas ka nolol fiican wadamada la soo tiriyay dhanka kale markaanu maxamed eegno waxaa jira wadamo kale ayaga laftigoodu qayb ka ah waxaan oo noloshooda ay aad u soo fiicnaanayso waxaa ka mid ah wadanka Switzerland ayaa ka mid ah baa la yiri Netherlands baa ka mid ah Canada New Zealand iyo waliba Australia ayaa ka mid ah la yiri haddaba daraasadan ayaa waxaa la sheegay Mareykanku daraasadan markii la sameeyay 2012 la bilaabay tii 17 haddaan dib ugu noqono Mareykanku wuxuu galay baa la yiri kaalinta 18aad dadku waxay isweydiinayaan aaway wixii la oran jiray American Dream riyadii Mareykanku maaday iyo nimcadii dunida la guranayay kaalinta 18aad ayuu galay ayaa la yiri kaalinta 18aad ayuu galay la yiri Mareykanku wuxuuna ku guuleystay inuu markaa 10ka u horeeya uu markaa yimaado ayuu ku guul daraystay baa la yiri sababaha uu ugu guul daraystay ayaa waxaa la sheegay inay ka mid tahay dalka Mareykanka marka la eego sida uu xaaladiisa siyaasaddu ay tahay oo kale ayaa waxaa la sheegay siyaasaddiisu inaysan waayihii dambe deganayn Donald Trump baa madaxweyne ka ahaa siyaasaddiisu ma deganayn baa la yiri waxaa kaloo deganayn baa la yiri health care crisis ayaa ka jira oo caafimaadka insurance-ga ayaa cirka isku sii shareeray taasoo waxay bulshada ku dhalisay baa la yiri walwal iyo murugo fara badan waxay kaloo ay leeyihiin baa la yiri dalka Mareykanka oo aad iyo aad u ragaadiyay haddii dhinaca kale aanu ka eegno waxa la yiraahdo maandooriyaha ayaa aad looga isticmaalaa baa la yiri oo markaas keena depression iyo niyad jab iyo walwal iyo murugo dadka ku dhaliya dhanka kale waxaa la yiri xagga shilista ama xaydha ayaa dadka ku badan baa la yiri oo dadku cuntooyin markaas aan isku dheelitirin bay cunaan taasina waxay keentaa inuu dadku markaas murugo iyo walwal iyo xayr fara badan ay fuusho ay yiraahdeen waxaan jeclaan hoosta ka xariiqa malihin haddii aad shilis tahay walwal iyo murugo ku haysa malihin daraasadu waxay tiri un baanu sheegaynaa laakiin maxamed ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo dalka Finland oo muhiimad gaara leh daraasadana looga hadlay Finland waxaa ku nool baa la yiri 5.5 milyan oo dad ayaa ku nool baa la yiri 300 oo kun oo dad lagu qiyaasay in dibadda ayay kaga yimaadeen intooda badan waxay ka yimaadeen baa la yiri wadamada Yurub ee markaa ka dhow wadanka Finland beesha in yar oo ka midana ay ka timid wadamada Soomaaliya Afghanistan China iyo Iraq ay ka yimaadeen dadka wadamada kale ka yimid laftigooda ayaa daraasada lagu soo daray waxaana la sheegay baa la yiri markii ugu horeysay dadka marka la eego wadamada ay ka yimaadeen iyo xaaladaha ka taagan Iraq dagaal muddo dheer ragaadiyay waan ognahay China oo wadan aad qani u ah haddana waxaa muuqata in maaragtay dadkiisu ay qaxayaan Afghanistan wada arki kartaa oo la socotaan Soomaaliyana si fiican baa loola soconaa inkastoo dadkeenu iyo dalkeenu murugada iyo walwalka iyo dagaalada ragaadiyey ay dhinacooda dhulka dhigi waayeen oo mar walba aad moodid Soomaalidu in ay boorka inay iska jafaan rabaan insha allahu tacaala waanu ka gudbi doonaa haddaba wadamadaas dadkii laftigooda daraasada laga qaaday ayaa waxaa la sheegay in ay muuqato inay ka farxad badan yihiin xilligii hore ay yimaadeen iyo xaaladooda siday ku sugan tahay ugu dambeyntii maxamed Mareykanka waxaa la yiri waxa uu ku guul daraystay in uu halkan soo gaaro oo wadamadan caalamka uu la tartamo uu horumarka iyo farxadda dalkiisa uu ka shaqeeyo sababaha aan ku sheegay ayaana lagu eedeeyay siyaasad xumo ama siyaasad aan deganayn intii Donald Trump uu haystay kuwaanu hadda weli way cusub yihiin lama qiyaasi karo dhanka kalena dadkii xanuunada kala duwan caafimaadkii oo aad u liita nolosha dadka qaniga iyo dabaqada hoose oo aad u sii kala fogaanaya iyo weliba dabaqadii dhexe oo maaragtay sii yaraanaysa oo qaarna ay ku biirayaan dabaqada hoose qaarna ay ku biirayaan dabaqada kore
ayaa waxay keentay baa la yidhi in aad gaabka u kala fogaado oo dadku aad u kala fogaadaan laakiin farxaddaanu ma ahan ugu dambayntii farxaddii annagu aanu naqaanay ee ruuxda ahayd maahan waxaa laga hadlayaa dhaldhalaalka adduunka deegaanka iyo meesha la degan yahay laakiin farxadda dhabtaaho waxaanu oran karnaa oo qofku ilaahay ku xirnaado oo ruuxdiisa ama naftiisa ka ammaan hela habeenkiina asagoo beriis yara cunay suurta dhiga ilaahayna tala saartay maxamed oo ku seexdo weliba aan ku tilmaamay waa saa sheegtay farxadaha kala gadisan qofba si uu u fasirtaay waxaan la yaabay in muddaana ahaayeen wadamadan ku yaala qaaradda Yurub qaasatan dhanka waqooyi sida Finland iyo Denmark iyo muxuu ahaa Sweden iyo muxuu ahaa Norway waa dhanka waqooyi qaaradda tan Yurub iyagu badanaaba kama baxaan liiskaas markay timaado tira ahaan anigu waxaan u fiiriyay Mareykanka kale lama samayn karo ama Mareykanka iyo wadamadan kale dadka tirada badan ay ku nool yihiin iyagana waxaa ku nool Finland oo kale ama Norway oo kale ama muxuu ahaa Denmark oo kale 5 milyan iyo xoogaa Sweden 5 milyan iyo xoogaa ilaa 2 milyan meelahaas marka tirada dadkana waxaan u maleynayaa inay qayb ka tahay iyo weliba meeshay dunida kaga nool yihiin arrimaha amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamkana saameynta ay ku leeyihiin aysan ahayn sida Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Mareykanka oo meel walba u joogaan laakiin qodob sax ah tilmaamto Mareykanka waxyaabaha dib u dhiga dadka badan ay sheegaan waxa kamid ah insurance-ga xagga caafimaadka oo qaali ku ah oo noloshiina qofka ay ku adkaanayso markay timaado qaasatan dhaqaalihii laga raba hadiiba dhaawac gaar ama dhibaato ay annaga Ingiriiska waxba ku rannahay kaga wanaagsanna waxa kamid ah in qofkii uu helay hana justice ama ay taageeraysaba laakiin xagga ay tahay jeebkaaga iyo waxaad haysid aad iyo aad arrintaas maxaa muhiim ah leedahay dagaalkii labaad adduunka marka laga soo noqday dowladda Ingiriisku waxay dhistay health care-kan haatan aan haysano free point of use la yiraahdo oo ah caawa haddii wax ay ku gaaraan xilligii doonto ha ahaato isbitaalka kuugu dhow baad tegaysaa waa lagu daaweynayaa shilna lagu weydiinaya magacaaga iyo adreskaaga lagu weydiinaya ciwaanka ku dhashay dabadna waa lagu daaweynayaa waana waxyaalaha NHS-ku ama caafimaadka Ingiriisku uu caalamka intiisa kale kaga duwan yahay waana wax lagu farxo oo mahad celinaynaa dadka shaqaalaha ee Soomaali badan ay ka mid tahay ee habeen iyo maalin u taagan inay dadka dabiibaan ilaahay baa daawada bixiya آمين آتي أدبو محسن يهي وريه عبد الحافظ محمود جامع أي أنا محمد سعيد برنامج كنا ورجيسيد تطباد لها وداوداشين بدرو كم فريمو ده كان لقوا سوق هذا كرنا عبديو وأنا كجم هاد علينا أنت إنه كل ما إنه برنامج كان برنامج كيس حاجة وأنا محمد سعيد إيوه ولكن عبد الحافظ محمود جامع وما تنتين صاحب يال أن شنودنا داون إنسان وحن نكعصرنا إن سبسكرايب كريسان أو كحرناتان أو أن نسكور قبل وحين إنه هيقول يدير كذا وما تنتين meel walba dunida ka joogtaan waa cabdixaafid iyo maxamed saciid oo ina leh sidaasiyo nabadgelyo